باقري wuxuu ku wajahan yahay xukuumadda Somaliland garaadada iyo isimada gobolka Sool kulan ballaaran oo ay maanta isugu yimaadeen badiba culimada waaweyn ee reer Somaliland ayaa waxay kulankaasi kaga hadlayeen xaaladda magaalada Laascaanood kulankaasi markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah culimada waaweyn ee reer Somaliland waxaanay halkaasi ka akhriyeen bayaan ay ka soo saareen xaaladda magaalada Laascaanood waxaana ka mid ah hadaladoodii الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باقة علماء Somaliland حالة Laascaanood maanta oo taariikhdu ay tahay 22 bisha Rajab 1444 hijrada kuna beegan 13 bisha February 2023 waxay culimada Somaliland halkan ku soo gudbinayaan baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood iyaga oo aad uga tiiraanyeysan khasaaraha naf iyo maalba leh ee dhacay iyada oo laga fursan karayay qadarka lana waa halkiisa baaqani wuxuu ku wajahan yahay xukuumadda Somaliland garaadada iyo isimada gobolka Sool bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto warbaahinta iyo baraha bulshada Soomaalida iyo qurba joogta qodobada baaqa qodobka koowaad culimadu waxay tacsi u dirayaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku waxyeeloobay shaqaaqada inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacan Allah u boogadhayo inta barakacdayna baradoodii si nabad Allah ugu soo celiyo wixii ay hanti ku waayeenna ciwad khayr leh Allah ka siiyo laba culimadu waxay xusuusinayaan labada dhinac in dhiigga muslimka oo la daadiya uu xaaraan yahay iyadoo lagu jiro bilihii xurmada lahaa bishii Rajab waxaanay xusuusinayaan xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inoogu sheegay inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum in dhiigga iyo maalka iyo cirdiga iyo sharafta qofka muslimka intuba ay xaaraan yihiin qodobka saddexaad culimadu waxay cod dheer ugu baaqayaan adkaynta iyo hirgelinta xabad joojinta afar si gaar ah culimadu waxay ugu baaqayaan xukuumadda Somaliland iyo garaadada gobolka Sool inay hirgeliyaan tallaabo kasta oo suurto gelinaysa dhamaystirka xabad joojinta shan culimadu waxay ugu baaqayaan labada dhinac in wixii khilaaf jira lagu dhameeyo wada hadal iyo wada xaajood ku salaysan shareecada islaamka waxaanay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan xusuusinayaan in dagaaladii muddada dheer ka socday Soomaalida dhexdeeda aan laga faa'iidin wax aan khasaaro ahayn فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر qodobka lixaad culimadu waxay ugu baaqayaan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed bahda warbaahinta baraha bulshada in Ilaahay ka cabsadaan oo ay iska hubsadaan waxa ay faafinayaan iyo hurinta colaadda sokeeye iyaga oo xusuusinaya qowlka Alle yaa ayuha alladina aamanuu
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تضبع علماء وحي أقوبا قيان قرب شوكتا إيا قرن شوكتا إن إلهي كبقان oo ay ka qayb qaataan xoojinta nabadda iyo horumarka kana waantoobaan hurinta colaadda iyo fitnada. 8 culimadu waxay diyaar u yihiin inay kaalin mugla ka qaataan deminta colaadda iyo nabadeynta dadka walaalaha ah. 9 culimadu waxay ugu baaqayaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan samafalka iyo taakulaynta walaalaha dhibaatadu ka soo gaadhay colaadda Laascaanood, waxaanay diyaar u yihiin inay kaalintooda ka qaataan. ugu dambayn qodobka 10aad culimadu waxay labada dhinac xusuusinaysaa in walaaltinimada islaamka iyo ehelnimadu ay asal tahay, loona adeegsan burburinta arrintaasi shaar qabiil iyo mid diimeed midna. waxay culimadu ilaahay ka baryayaan inaan colaadaas cid danba inagaga dhiman. wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ku xoojinayaa uun laba qodob. qodobka koowaad, maalmaha adduunka walaal way kooban yihiin. qof walba waxa uu horu marsaday maanta uu sameeyo unbaa ka horeeya. aynu akhrideena u tudhno, qabriga inaga horeeya aynu u tudhno. qof waliba ummaddaas iyo dhibaatadaa taagan wax iyagana anfacaya isagana anfacaya oo badbaadinaya ha ku dadaalo. kaasi waa xasuusin. qodobka labaad waxa weeye dowrka culimada ay halkan u joogaan iyo guud ahaanba inaynu fahamnaa waa muhiim. culimada dowrkoodu waa islaaxin, waa isu soo jiidid iyo abuurid jawi nabadeed oo dadku ay ku nastaan oo lagu wada hadli karo. sidaa awgeed uma taagna marnaba uma taagna ama lama gaadhin heerkii wax la kala xukumi lahaa. maanta waxaan ku baaqaynaa keliya in xabadda la joojiyo, la wada qodobadaasi maqsuudkii ujeedada laga leeyahay tahay baajinta dhiigga islaamka ee daadanaya, in ilaahay subxaana watacaala uu inoo fududeeyo dhammaanteenba hirgelintooda iyo fulintooda. waxaan ku darayaa intaa culimadu ay yidhaahdeen qof kasta oo muslimi marka koowaad wuxuu mas-uul ka yahay naftiisa, inuu naftiisa adduunyada badbaadiyo oo halaag aanay mudan aanu ku ridin, aakhirana naftiisa inuu ka ilaaliyo wadooyinka naarta loo maro. ilaahay baa subxaana watacaala yihi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. naftiina marka koobaad naar wax uga dhiga oo ka ilaaliya, mar labaadkana ehelkiina. qof kasta oo ka mida dadka bani aadamka adduunyada dusheeda joogaa uu dhiman doonaa. dhimashada kadib waa la imtixaami oo su-aalaa la weydiin, waa la xisaabin. wuxuu isagu sameeyey baa lagu abaalmarin khayr iyo shar. faman yacmal mithqaala daratin khayra yara waman yacmal mithqaala daratin shara yara. qof dembi ka xambaarayaa ma jiro, qof kale uu xutarayaana ma jiro yowma alqiyaama marka ilaahay subxana watacaala la hortago. waa maxamed xuseen ibraahim, horyaal TV magaalada Hargeysa.